السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaad nagala socotaan waa Maryam Muqdisho official. fadlan hadaad ku cusub tahay subscribe, share, like, comment dhacdac ku sii soo dhow hadaad jid ayada darteed oo ka heshana u saari kartaa subscribe ku bilaash waan fahanteen views kale ahayn isku shaqreefiya hadaba mar kale iyo barnaamijkii nolosha ciyaaryahanka maanta ayaa ku soo qaadan doona Maryam Muqdisho Ibrahim Alosh. hadaba Alosh waxaad aragteen asagoo fanaanad xiran oo garoonka ku jiro. Alosh waa qof kuma Alosh halkuu ku dhashay. Alosh cuntada nooc ka hela. Alosh uu ku daysadaa ama ciyaaryahankee uu ku daysadaa. Alosh team ku taageera dunida markii la tago ama ciyaaraha adduunka. Alosh markuu guriga joogo muxuu ku nastaa misna uu fiirsadaa ama sida ciyaaryahanada adduunka oo kale muxuu sameeyaa. Alosh markuu nasiinada ku jiro musiga noocay uu dhageystaa Soomaaliga uu dhageystaa ma heesa kale uu dhageystaa. hadaba Alosh sidee isku yihiin filimaanta jacaylka iyo Alosh sidee isku yihiin jacaylka yaasa ku soo dhiirigeliyay Alosh ciyaaryahan ahaanta ama ciyaaraha inuu soo galo intaas oo dhan ama ciyaaryahanada oo necab yahay inay ka hor imaadaan yuu jecel yahay inay la saftaan saaxiibka isboortiga saaxiibka xaafada intaas oo dhan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa nolosha ciyaaryahanka Ibrahim Alosh magaciisa saddexan oo kuma Alosh waxa aragteen asoo garoon ku jiro misana fanaanad xiran soo shakhsi ahaantiisa hadii aad xiiseynaysid inaad noloshiisa wax ka ogaatid barnaamijkan si fiican u dhageyso. Alosh magaciisa saddexan haatan waxa weydiinayaan Neerus. Alosh magaciisa saddexan Alosh magaciisa saddexan waa Ibrahim Ali Yahye Sidiq oo ku magac dheer Ibrahim Alosh. hadaba Ibrahim Alosh aad u taqaanaan halkuu ku dhashay. Ibrahim Alosh wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho wuxuu ku soo barbaaray Yemen. haatan su'aasha kale waxaan weydiin doonaa Neerus. Alosh kooxaha uu soo ciyaaray ibnooniga intuu ka soo bilaabay. Alosh wuxuu soo ciyaaray kooxdiisii ugu horeysay Somali Fruit ama kooxda muuska aan ogeeyna inuu babaay macalinka uu ahaa. mideeda kale wuxuu ka soo muuqday dhacdadii gobolka Banaadir waana ciyaaryahan gobolka Banaadir soo matalay. Alosh wuxuu u soo dheeray markii gobolka Banaadir laga soo tagay in badan lagu arkay in badan oo garoonka uga soo dhex muuqday asagoo maaliyadaas wato kooxda Horseed. hadaba wuxuu kuntii soo gaaray kooxda ilmane anagu taageerno ama jaalayaasha sida u taqaanaan waana xidiga kamid ah xidigii koobka Starliga la qaaday hadii aanan khaldanayn aad weyn laakiin hada Alosh anaga teamku ku sugan yahay ama u dheelamaan ogin midaas muusan la wadaagin. Maryam Muqdisho cuntada noocay buu jecel yahay Alosh. Alosh cuntada wuxuu jecel yahay chickenka iyo cabitaanka mangaha amba cambaha sida dadku u yaqaanaan ka helaa. haatan Neerus ku laabanaya Ibrahim Alosh jacaylka sidee isku yihiin. Alosh jacaylku isku wanaagsan yihiin laakiin kuma dhihi karo Alosh hebel buu xiriir la leeyahay laakiin sida nagu maqaalaha ama asagu nala wadaagay Alosh jacaylka aad bay isku wanaagsan yihiin malaha qof isku xunba jacaylka ma jiro dadku dhan isku wanaagsan yihiin la'aantiis ma bala jiri lahayn jacayl aad weyn. su'aasha xigta waxaan weydiin doonaa Maryam Muqdisho waa kuma saaxiibka uu kubadda cagta ku leeyahay. Alosh sidoo la wadaagay saaxiibo badan ayuu ku leeyahay kubadda cagta markii la dhinaca kubadda cagta laga hadlo laakiin asoo saaxiibo badan ku leeyahay misana qof baa si qaas ah ugu dhow saaxiibka Alosh u dhow oo qaaska u ah waa hanadkii hadaad ogtihiin wuxuu ku sugan yahay halka iyo Horseed. hadaba yuu jecel yahay inuu la ciyaaro ama ay garbihiisa ka soo muuqdaan Alosh. Alosh wuxuu jecel yahay inay garbihiisa ka soo muuqdaan Achiko ciisa xidiga Horseed haatan elman ku sugan aad weyn. Anwar Said Ali Shakunda xidiga Yemen maadaama Yemen iskala yimaadeen ee haatan ku sugan yahay elman ayna soo wada ciyaareen aad weyn iyo Said Yemani halkaas kala yimaadeen Yemenina isla asagina Yemen buu ka yimid magac Yemen buu wataa laakiin nasiib wanaag wali Alosh Yemen maybe Yemen laakiin inta hada Muqdisho la joogo iskama soo hormuuqan ama garoon meena soo wada galin maadaama Yemeni uu yahay ciyaaryahan goalkeeper ah. Neerus Ibrahim Alosh filimada jacaylka sidee isku yihiin. waa isku wanaagsan yihiin inkastoo uu soo sheegin atooraha sida qaaska u taageero. hadaba Maryam Muqdisho Alosh markuu guriga joogo fanaankee u dhageysta ama music ku raaxaysta. Alosh sidoo la wadaagay mise nagu maqaala oo nagu sheegay heesaha Soomaalida inta badan waa dhageystaa laakiin si fanaan qaas ah wuxuu u jecel yahay Suldaan Seeraar Guhaad. haatan inta dibaysa igada heestaan ugu jeclahay siisa
maxaa la dhihi jiray Neyrus waxaan weydiinayaa Arash marka laga soo tago kubadda cagta oo maadaama uu Muqdisho ka dheelo caalamku uu ugu daysadaa mise uu jecel yahay xidiga Ibrahim Arash yaraantiisa wuxuu jeclaan jiray xidigii Barcelona hadaan qaldanayn Xavi Alonso ayuu aad u taageeri jiray laakiin markuu Xavi Alonso ciyaaraha ka fariistay haatan wuxuu ku daysadaa isna uu taageeraa Kroos ama Antonio Kroos oo taqaaniin hadaba Ibrahim Arash markuu guriga joogo muxuu ku madadaalooda ama uu isticmaalaa Ibrahim Arash markuu guriga joogo lawal xaaduna la wadaagay oo inta badan uu dheelo midka koowaad waxa waa Play Station midka labaadna waa internetka oo uu ka soo degsado casharada maadaama uu yahay qof wax bartay hamigiisuna aad u fiican yahay waxbarashada ilaa heerkee ayuu ka gaaray waxbarashada wuxuu ka gaaray heerka koowaad ama sida uu taqaan bachelor degree Arash waa kuma saaxiibku uu ku leeyahay barta ay banaanka mise xaafada waa maxaa la dhahay wiilka Instagram-ka sidiisoo kale xooga ku leh Yama wana Maxamed Salaameyna xidiga maxaa la dhahay fanaanada Hamda yara saaxiibkeed wiilkii loo qaaday heestii jacaylkii xamar ku galay aad u Salaameyna hadaba Arash markii laga soo tago sportiga yaa sportiga ku dhiirigeliya Arash waxa sportiska ku dhiirigeliyay walaalkiisa asiga ka weyn Arash marka laga soo tago sportisku waa wax meel ku eg saa u wada ognahay soo xad leh maadaama uu qof wax bartay yahay muxuu jecel yahay in uu haduu sportiska iska dhaafo uu ku bedelan lahaa Arash wuxuu bartay anu maleynayaa public administration laakiin samahuba Arash wuxuu jecel yahay inuu noqdo siyaasi ama dalka xilka qabto sida aniga waxaan jeclaa public administration maadaama aan baranay lamadeenuma waxaan jeclaan inaan madaxweyne noqono laakiin xagga diinta islaamka noo baneeyay anaga Arash waan u rajaynaynaa maalin inuu madaxweyne noqdo riyadiisana ay rumowdo Arash waxaan ku leenahay dream baad leedahay riyadaaduna aad bay u wanaagsan tahay hore u soco dadaal uu gaara waxbarashada wax ka wanaagsan male wax kasta meel bay ku egyihiin way dhamaadaan laakiin qalinku ilaa aad gaboweysid buu kala socdaa Arash waan kugu dhiirigelinaynaa waxa tahay shakhsi hami kale nolosha waxa tahay qof daayar ay now sportigu inuu meel ku egyahay laakiin adiga hamigaaga goonida ah maadaama cali ka horeeyo uu yiri anigu sportiga waa hamigiga laakiin adigu hamigaagu yahay in dalka aad maamusho ma sha Allah waa soo dhaweynayna aadan ku soo dhaweynayna wax walba waqti leeyihiin hadda dadaashid waad gaari doontaa insha Allah saaxiirka aad jeceshahay dadaalkaagana haka harib baaleenahay kamira dhali aad weyn waxaan ku leenahay keep going horay u soco digee qalqalgaliya Arash ama xidiga sportiga because of anaga waxaan ognahay xidiguhu inay isnacbeen laakiin garoonka markii la iskaga hormaado xidigba xidig uu saaran yahay hadaba waa xidiga Arash garoonka markuu joogo qalqalka galiya xidiga Arash qalqalka gali markuu garoonka dheelaayo mise uu ka cabsado dhanka banooniga waxa la dhahaa Abbas Amin kabtankii dekada ilaa hadana marka ka soo tagno soo banooni maadaama uu ku dhex jiro qof walba koox buu taageeraa Ibrahim Arash uu taageeraa Ibrahim Arash wuxuu taageeraa kooxda cadcadka ama boqortooyada Real Madrid islaamina maadaama aan nahay fans Real Madrid aan nahay gabdho sports markii laga soo tago ciyaaryahanku inuu asaga dheelo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro aad taqaanid oo aad ka seesido dunida maxaa la dhahay mucjisada ah Lionel Messi uu jira laakiin aniga supporting ahaantaydan ka hadlaya asaga ba qof buu uga soo daysaday intuu yaraanaadi buu taageeri jiray haatan Ibrahim Arash asagoo ciyaaryahan oo garoonka ku jiro taageera Real Madrid waana salaamayna dhamaan family-ga Real Madrid iyo taageerayaasha Chelsea aad u salaamayna anaga daawanaysan waa milyan Muqdisho meeshan waxaan ku soo qaadanay aad weyn waxaan ku soo qaadanay Ibrahim Arash noloshiisa hadaa jeceshahay ciyaaryahan kale mise inta waqtiga noo saamaxo Ilaahay ka raali noqdo community-ga noogu reeb waa idin soo qaadi doonaa Ibrahim Arash noloshiisana bartaas kala soconaysiin waa milyan Muqdisho inay rushaxshaxleeyo idin leh maalin walba qof baro laga yaabo xataa milyan Muqdisho nolosheeda saxda inay soo gudbin doonto hadaad commentiga ku soo xariiqdo aad baad u mahadsantihiin sidaad nagu dhiirigeliseen la'aantiina waxba ma aannahin kashiya garoonka markii laga soo tagay wali waxaan
jibaaxayna ama aan dhex dabaalanayna isboortiga Soomaaliya maadaama isboortiga aan hami ka leenahay aan rajaynayno inaan noqono dad isboortiga ka soo muuqdo qaasatan garsoor sida Milyan Muqdisho ka dhawaajisay dreamkeena uu noo rumoobi doonaa insha Allah nin walbana rajul leeyahay rabbi ha u rumeeyaan leenahay waa mataanihii ka shiyo guruunka Milyan Muqdisho iyo needu saxleeyo idin leh sida ay barnaamijka xigay ciyaaryahan cusub noloshiisa wax ka baro bye